kulanti wacan oo wanaagsan saaxiib ahaantiinba meel walba aad joogtaan halkani waa channelkeena xog bixinta wararka fadlan dadka cusubtay walaal macaan ku soo biir channelkeena xog bixinta wararka kana mid noqo kumanaanka kun ee qof sida joogtada nooga xiran halkaas aan ku baahinay warbixino iyo waraysiyada baraha bulshada la isla dhex marayo haddaba 24 saac la soo dhaafay waxa baraha bulshada harqiyay arrinka Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays kaas oo gaadhay guri walba oo Soomaaliyeed in uu laga hadal hayo Farxaan Yare iyo rasmi rays haddaba rasmi rays ayaa hadalkeeda u soo dhigtay mid sidoo kale ka xun geerida maadaama ay soo fadfadhay wixii allaale iyo wixii ay Farxaan Yare oo dhan ka tabanaysay muddo dhowrkii bilood ay si kala maqnaayeen laga yaabaa in aad dareentay aad maqashay furniinka sidoo kale Farxaan Yare iyo rasmi rays soo kala dhex galay maadaama berihii ugu dambeeyna ama dhowrkii cisho ugu dambeeyay la isku haystay uurka ay dhashay ama qofka yar ay dhashay rasmi rays haddaba sidoo kale baraha bulshada waxa haystay qofkan rasmi rays dhashay yaa dhalay ma Farxaan Yare mise qof kale sidoo kale rasmi rays waxay bartay YouTube ku baahisay oo saaxiib muuqaal xasaasi ah haynaa in ay rasmi rays ka tirsanayso Farxaan Yare dhowr arrimood oo runtii aad ugu xun oo marka daawatid adigaaga ninka ama gabadha sidoo kale aad uga murugoonaysid haddaba sidoo kale Farxaan Yare wax uu nin weyn ku hadlo kuma hadlin laakiin sidoo kale sababtaan uga tagnay muuqaalkiisa soo baahin weyne wax in aanu wax ka soo hadlin sidoo kale nin weyn ku hadlo maadaama uu halkaas gartii ugu hayeen ama dadka ummadda Soomaaliyeed soo bandhigeen ay kaga garnaqsanayeen dhalinta sidoo kale ay ahaayeen in la soo dhex galo oo arrinkooda laga wada hadlo ay rasmi rays ka hadashay arrin waaqac oo taagnaa markaas inta uu Nairobi ka soo kaxiyay halkiis uu deganaa ee Boorama uu keenay oo halkaasna runtii ku sameeyay arrin aan gabdhaha Soomaaliyeed sidoodaba loola dhaqmin maadaama gabdhaha Soomaaliyeed ay mudan yihiin sharaf iyo sidoo kale cisi ay nagaga yaalaan boos aad u muhiim ah haddaba ma la is odhan karaa arrinka rasmi rays iyo sidoo kale Farxaan Yare markaad dhageysatid waliba rasmi rays qof walba wuu ogaa in ay rasmi rays joogtay magaalada Nairobi halkaasna ay uga soo hayaantay kadib markii ay iskursideen ama sidoo kale ay uga soo hayaantay gudaha Soomaaliland halkaas oo runtii dhalinta reer Soomaaliland ay gaar ahaan YouTubers-ka ay runtii aad iyo sidoo kale loo kala hadhi fanaaniin haddii yihiin iyo sidoo kale abwaaniin wariyaal halkaas runtii fadhiga looga kacay halkaas lagu soo dhaweeyay haddaba saaxiibayaal arrinka rasmi rays ay ka hadashay ayaan muuqaalkeeda soo baahin doonaa waa kan كوات سومالي حامل البتشوكتان قبدين يرد إذن قلبي تقلبي والله بلا إنا قصلو حيرا يكدوم فهمتين أرنت أول كان كسر هلا أيام رباها إلا أنا جو كفوجاني إنا كدهو برنامج واحد شري أنا أنصحه واحد علي هنيك waxay April Fool Days maanta beenta adduunka cidul buure magaala ay cidul buu aqli qabto oo maskaxdeeda ay shaqaynayso way og tahay teeda kale aan rasmi ahaan hadaan been sheegay before maalmaha ka horeeya ama bilooyinka ka horeeya ayaan been sheeglaa Soomaali Maxmed kood waxa waaye dad la qiyaani kara dad been loo sheegi kara maahan dadka YouTube-ka ku xiran ama aan rasmi ahaan ku xirnaa dad aan jeclahay agtooda aan sharaf ka leeyahay mar walba iyo dagaal iyo dhinto haddii ayaga ahayn Soomaalida hadaan ka dhalan leen ana mar walba iska dhiman lahaa soo alxamdulillah ku faraxsanahay Soomaali Maxmed ka dhashtay oo ayaga aan gabadhooda ahay beenna u sheegay inaan xumeeyana ma aan laakiin dadka YouTube-leyda badana oo aragteen way jiraan barankiyada la sameeyo wax walba lagu sameeyo even qof walba fikir ku keensadaa fikir u laakiin branki waa la sameeyaa ma ka soo dhigay aan cunuga dhalay dadka waxay dhahayeen April Fool Day waaye so hadda ani arabo ina been sheego oo beenta sii wada waa soo hadlaa waxa dhila April Fool Day waa run arrinta aan sheega dadka kale arrinta hadday runta April Fool Day ka hor soo galan lahaa anigoo dumar dhibkii dhibaatada la geystay waan dabool waan qariyay laakiin waxa waa imtixaan dadka qaar mar aqligooda waa la tijaabiyaa أنا ما أنت بنت أدون كبرنامج كسر صادقة بارنا تكتوجد وحي سوق لسي سيدو كله أهل على إيقاعتي سواس برانك وحرون مهين برانك يهد أهل حافظ جو أنا سيدو كله حافظ أن شوقي وحرونك عند اللي مشت كل قفل بأقل قبل ووقي هاي ويك الصدى فم 2 weeks ago إنا بنباس جو باشالا راح يسناي everybody وأركاين إنا مال باروس كتوم عيش شقي سناي سوح البتوكان وكل هاي قفل بووقي هاي
soo inta aqliga u saaxiibka ah way ogeed arrinta inay brank tahay soo dad qaar waxa iska jira dad yaan dhihin hataa sida wiilkan soo hadlaa camal wixii isla rasmi appointment heshid wala ma tuni ragaatahay waxa wanaagsan in appointment fiican igeysatid oo aad Soomaalida la soo fariisatid dadka qaarna markii la iloobo ay rabaan in la soo xasuusto ay YouTube ku soo laabtaan ay dadka ku dhagaan soo aniga ka xumaynaa in qodo qofka YouTube ugu soo laaban marka arinta sameeyay aniga hadii arabina wiilkas aan kala dhamaan aan u sheegtay in cunug u dhalay ana wixii lahaa dad ay way jeceshahay dadkaas laga yaabo inuu asaga soo dirsaday xidhayn way jeceshahay ana hada jecelahay waa wixii lahaa waa raadsanaa waxa dhila waa ku dhalay been raad mala beento wala soo qabta laakiin ana ma wacan asaga isoo wacay okay markuu asaga isoo wacay waxaan dhaxmaray wuxuu yahay before wuxuu isoo diray wasaabkaygu wuxuu igu soo diray linkigi barnaamijka YouTube soo galay wuxuu maxaa ka jira ha waarun baan ku dhahay waan dhalay because wax lagu dheelo way istaahila ninka ragga ee xaaskiisa dhaqalaysan waaye wanaajin waaye in lagu dheelo mee in si badan amal loo harantii way istaahila okay ana shalay wanaaga ugu sameeyay waa arki waysa brother xumaana igu bedeshay okay adoo i xumaysay ayaa hadana ku sii wanaajiyay then maanta marka aragtay uur adoo ma aqliga laada ilmaha adiga gacantaada ku soo dishay sidoo u dhalanaya miis weydisay okay waxa jira dad aan weydiiyay dad u dhow arrinta iga dagaandagi weysay dad baan weydiiyay dadkaas oo ayada u dhow oo igu yiri arrintu waa been dadka ay weydiinaysid adii ay isku mid aan agteeda ka tihiin I don't care nag warkay qaadatana miihi nag dad uji kalena mi yani alhamdulillah always rasmi aniga rasmi ibni ma biish ana isbiila qof muuji kale ma jirto Soomaali Maxamedna waa ka wada dhalan cidi qaldan cidi saxana way ogtahay okay way saway wiilkas wixii ugu dhahay maxaa ka jira arrinka uurka ah waxa ku dhahay waa sax wixii ugu yiri maxaa hooyada ugu sheegaysa hooyadii uma sheegin dhahay hooyadii uma sheegin أنا محمس يقصد دروس قف قمنا مس لا صدر even هذا أنا كود الله تقوم شيئين ويا أبا مستاش I know you bro ما تيزوح أبا لده هذا استاش أبا كان جبوت كود جوا شو كسر عسل أيات بيلا لهاد أو أنا جاي قرص إنه والبحر إيه المهدلون كفانا أنا قلت مرة أنا ويل إيشوجا مركل يقولسنا بتاع برادر ويل إيشوجا هذا مرك أبا نما قصص أما أو هذا يعني أنا المهيج أوجادا ربي ilmahan beenta ilmi runta ka horeeyay ee Djibouti joogay ma biilatid noloshaada adoo magac cunugaaga sheegaysid lagu ma arkin aniga ay qabtay sanad iyo bilooyin aan noloshayda ka maqleen mar aan kugu arkay Hargeysa adoo maxal dhig jiray beenta sheegaysa dadka reer Hargeysa ku soo sheegeen wixii gurigaas uu ku burburin waxa uu sababa beenta ay sheegaysa iyo waxa adiga aad aas-aastay ma fahanteen marka la yahay ku dheelayna ma aha in aan qofka bini'aadan kama walba ku dheeli jiray before saa ugu wanaagsan qof walba uu ogyahay rasmi ninkeeda lagu wici jiray because waxa aan kan sameeyay wanaagayga qof walba arki jirtay cid ku taqaantana ma laha before rasmi dan ma isku sheega bisruna isku sheega okay jisaar waxa dahay jisaar naaru gala jisaaraad haadi gabadhi walaasha ayada ku soo garab qowto ku wanaajinaysay ayaa ku jisaartay soo ina maanta kugu daldeel ani barankiga sameeyay waxa 24 hours kadib aan xiraaray waxa uu xiri waayay waxay asaga dartiis marka asagoo isoo wacaya dhahay oh my god ninka shalay ilmaha ka soo rido ku dilo jiraajirta ka tuuray ma ku soo wacanaya rasmi point ay stay ninkan waa xawayaan inta ku dheeli karto ku dheel waana kugu dheelay 3 days aan kugu dheelay okay hada maanta inta soo ogaatay oo dad ayaga duubtay ay YouTube kala soo farstana ana hada kule waxa lagu dheelo waa istaasha waana kugu dheelay intaante bid aad hooyadis ka warqab si asaga ugu warqabaysa brother wala isku dheela runta ma laga hadlamaysa ciyaar labada aniga hooyadis ka warqabays ma aniga ma aniga ka warqabay hooyadis ka warqabays ilmaha waxa ka horeeyay hooyadii aabaha day wanaajin waayaan ilmaha meesha wanaag uma yaalo intaante okay warkii yani ku sii dheereenin أنا عنقيقة أصدق عن تسوق دنت because أنا واقرناي أصدق أمانت إن أنا شيء يوكلفه because برانكي جيجا وأسكسي ودس فأصدق وديل ما دام أكينه على علاية وحسده كوديل كم واحد كوديل ويستاهله تهذا كلينه بقيه إنه أقل كمان كل جرمه أنا جو أنا ترى يقول توري عندي بحرجيسة أنت وأنت ديسكو ديك بحاي ومقلاي وني إسور هذه من هرجيسة ده هذا oo aan soo tago Nairobi ma gabadhi ma dhimatay ma nooshahay aniga ma ku jira oo na dhihin ay intuu soo bixi u dhahooyaa maxay igu sheegays in ay dhashay ma fahanteen qof walba uu dareemi karaa in meesha ka kululahay mise aan wax ka dareemayo
nin shalay intaa guursta asagoo shilin haysanin aad waddankaagii dadkaagii gurigaaga intaa uga tagtay wax walba noloshaada aabaylaysay aad raacdood la guurtay abaalkaaga ka dhigo inuu dabada haraantid kaa geliyo cuniga kaa soo rido telefoonka kaa qaata kaa jijibiyo shilinka gacanta ku haysana uu kaa faramaroojiyo kaas nin mala dhihi karaa waxaa intaas dhan aan u qarinaayana waxay tahay inaan ahay naag iska adag oo tarbiya lagu soo koriyo oo wax walbana qarin karo aniga soo gudbayo wuxuu yiri dhowr jeer aniga qalad liiga galay sub qadaaranaya horta codka waxaan kuugu soo diray waxay ahayd inaan ku tuso inaad doqon aad tahay ma fahantay ani hooyaday second daqiiqad everyday aska warqabnaa you know me bro ma fahantay aada ii taqaanaa dadka ani hooyada lagu qasbayo wax la dhahayo oo hooyada loo biilayo mihi teeda kale ana hal hooyo meel la buu laba hooyo ay dhashay ma fahantay ayadii soo korsatay 3 bilood oo jiro ilaa intaan ka weynaa hooyadii waa ayadii maahan hooyadii dhashay xamar joogtana waa hooyadii ay haf laba hooyo ma fahantay aabahay alxamdulillah sidoo kale waa ka warqabaa arrinkan kugu haysta wuxuu yahay waxa rabay inaan xaqiijiyo mas'uuliyad ayaa isaaran مسؤولية سيكون صارناني أروح مسؤولية كور قبضة أنا جاب أدي مسؤول كاها أنت أنا جاب أدي كافكر جرب وجان شري تو مرة تو آدم